degmada luuq ee gobolka Gado ayaa laga hirgeliyay kaalimo shidaal ah kuwaasi oo isla hadda socdo dayactirkooda waxaana qayb libax ka qayb qaatay maamulka degmada luuq ee gobolka Gado iyo ganacsatada degmada. kaalimaha shidaalka ayaa noqon doona kuwa si toos ah ugu shaqeeyo degmada. bulshada ku dhaqan degmada luuq ayaa noqon doona kuwa ka badbaada dhibaatooyinka badan ay kala kulmi jireen shidaalka xiliga dabka uu goob kamid ah oo ka kaca degmada luuq. mikrofonka KGS aan la dhaxqaadnay bulshada ku dhaqan degmada ayaa waxaan ka wareysanay sida ay u arkaan kaalimaha shidaalkan ee maanta dayactirkooda laga bilaabay degmada luuq. waa kan ugaas aadan malaaq oo kamid ah ugaasiinta ku nool degmada luuq ayaa waxa uu ka warbixiyay in ay kamid tahay kaalimaha shidaalka ee maanta laga bilaabay dayactirkooda degmada luuq horumarka degmada. kaalimo shidaal oo la dhisay horumar magaalada ku soo kordhay. fuustooyin baan wax ku gadan jirnay, fuustooyin baa la dhigi jiray, waan ka baxnay. hadda kaalimo shidaal badan baan dhisanay. kaalimaha shidaalka degmada laga dhisay aniga waxaan qabaa ra'yigayga iyo aragtidaydii in ay tahay horumar magaalada gaartay ay degmada gaartay. waxaan leeyahay dadka dhisanaya wixii ka faa'iido ka sii fiican in la dhiso ayaan aad u jecelahay. ninka dhisan karo awood buu ahay in kaalimo shidaal ku sii daro akaare iyo idaali iyo dhulkaas horay loo dhiso iyo xalada ciidanka masjidka ka damba qaarka taa laga dhisay kaalmadaas ayaan aad u jecelahay in magaalada gudaha meesha horumar la yiraahdo ayada kaalmo laga dhiso yaan fikraddeeda ku tarsan lahaa. waxaan u mahadcelinayaa TV koonfur galbeed oo ka shaqeeyay marka sida sharafta leh asaga u qaaday wararka ama u soo deynay ayaan u mahadcelinayaa TV koonfur galbeed. ما شاء الله وهرمر ديغان kusoo qordhamay naadi aad bay u wanaagsan tahay. halka markii hore dukaamada inta badan ay guban jireen hadda muxuu ahaay dukaankan aniga hadda aan ku jiro Shamsa waxay ugu dhagan maqaayad baa ugu dhagan dhinacan kalena waxay iga dhagan meel shidaal baa iga dhagan walwal fara badan baan aad uga muujin jirnay inkastoo oo xagaagi inta badan dukaamada ay guban jireen hadda laakiin waxaan rajaynaynaa dababkii faraha badnaa inay yaraadaan shidaaladii la xareeyo isku soo haraan ganacsigii bas uu isku soo haro. alxamdulilah horumarkaas waan soo dhaweynayaa ku soo qordhamay deegaanka naga degmada luuq ganaane. waxaan bulshada inteeda aan ku sheegayaa in horumarkaas la taaban kara ay ayagana soo dhaweeyaan inta dhimanna ay shidaalada naga xareeyaan oo ay naga geliyaan kaalimo u sameeyaan oo dadka ay naga geliyaan ay naga xareeyaan oo ku daydaan ayaa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol maadaama horumarkaas horumar ku soo qordhamay deegaanka luuq ganaane uu yahay in lagu daydo luuq iyo wixii ka shisheeyay eriyadeeda ama degmooyinka kale ama muxuu ahaay lagu dhowdhow inay aad iyo aad loogu daydaan. waxaan u mahadcelinayaa TV-ga koonfur galbeed STN oo mahadcelinaya. waxaan halkaan uga mahadcelinayaa TV-ga koonfur galbeed iyo STN ayaan halkaan aad iyo aad uga hormaleynaya uga mahadcelinayaa maadaama ayaga laftirkooda isdhexmarka bulshada ay ka qayb qaataan horumarka ay ka qayb qaataan wax walba oo caalamka ka dhaca fadhiganaga aan kagala soconno ayagana ay nala socodsiinayaan sidaas oo ayagana ugu mahadcelinaya. cabdinuur shablee xasan cabdinuur shikir raadiyaha telefishinka koonfur galbeed ee Soomaaliya degmada luuq ganaane ee gobolka Gado.